bal waran gabadhii aaway gabadhii wuxuu yiri horta way joogtaa way caafimaad qabtaa way nabad qabtaa waan ilaaliyaa wallaahi wuxuu yiri waxaan u ilaaliyaa sida hadda anu ilma haddaan dhalaysaan u ilaalin lahaa si ka daran baan u ilaaliyaa maxaa ilaalinteeda korka kaa saaray aabaheed baaba rafaaday oo silcayo 2 sano ku raadinayay maxaad uga soo qaatay aabaheed iyo hooyadeed wuxuu yiri dee suga horta aan idinka sheekeeyay sababta aan u soo qaatay haye wuxuu yiri ninkan intaas oo sano isla shaqaysanaynay lacagaan dhulka hoostiisa ku aruursanayay 15 sano iga qaatay lacagteedii buu ii soo celin waayay waxaan go'aansaday marka gabadhiisa inaan afduubto wuxuu yiri marka dadka dukaamada la iyo dadka waaweyn iyo maamooyinka iyo gabdhaha guryaha dadka hantida la meelaha ay degan yihiin guryaha ay ka soo baxayaan iyo baan hor istaagi jiray anoo gabadhi yareedna wata qofku markuu la kulmo qofku uu yiraahdo assalaamu calaykum walaal waxbaan rabaa inaan kuu sheegay waxaan kuu sheegan karaa markuu dhaho dadka qaarna intay saa u eegaan bay iska tageen uma istaagayaan dadka qaarka oo waxoogaa qalbiga jilicda sanna way istaagayaan waxay leeyihiin haye sheeka dheero beena buu uga sheekayaa marka qof walba wuxuu yiraahdaa gabadhan yar ma u jeedaa in hooyadeed markay saa u dhashay bay dhimatay anigu waxaan ahay nin miskiina gabadhan yarta aan haystaa gabadheed cidii haysa ma haysto ma shaqaysan karo waxba ma haysto anigu waan xanuunsanahay ma shaqayn karo gabadhan yarta aan haystaa gabadheed yar waa rajo ani basay i haysata walaala lama dhalanin aaba ma lihi awow ma lihi arxan ma lihi qofkii calooshuu ka soo ridaa wax isii dadka qaar dee waa dad iska qalbi jilicsan oo dadka qaar ilaahay baa hanti siiyo lacag badan bay siiyaan dadka qaar sheekadiisa markay dhageystaan way iska tagaan dadka qaar wax yar bay siiyaan gabadh yar wuu ku tuugsadaaba lacagtaa aan tuugsaday baan ururin lacagtuu aabaheed iga daynsaday markay dhannaato markaasaan gabadh yarta aabaheed u celin rabay oo waxaan gabadh yarta usoo afduubtay inaan ku dawarsado